waxa kaliya ee aan arkay waxaan wax qosala ama wax qabiila ama wax cayiya in lagu sameeyo dadka hadda inteena badan Soomaalidu waxaan ku jirnaa dadka ugu badan ee media isticmaala iyaga laftooda dhalinyarada maxaa tala siin lahay waxa tala siin lahaa in wax walba inaan entertainment laga dhiganin amaba ma weela inaan wax walba laga dhiganin la isku dayo waxyaabahan macquulka ah ee maanta ayagani waxaan business laga sameeyo in ganacsiga laga sameeyo in waxbarasho laga sameeyo in wax dadka wax u taraya laga sameeyo laakiin maanta VO3 video generation amaba qoladan Google ay video generation kan ay sameeyeen VO3 la yiraahdo waxa kaliya ee aan arkay waxaan wax qosala ama wax qabiila ama wax cayiya in lagu sameeyo so far laakiin waxyaabo badan oo kala laga faa'iideysan kara marketing baa lagu sameyn karaa shirkad products-koodii waxyaabahooda lagu xaysiiyo waxa laga sameyn karayaa filmaan wacyigelin dadka lagu sameeyo waxa laga sameyn karayaa muxuu ahaay waxbarasho dad wax u dhiga waxyaabo ciida ka badan baa laga sameyn karaa marka in wax walba ayna dhinaca entertainmentka iyo maaweelada ay naga gelinay ay galaan oo dadku ay bal dhinac kale wax ka eegaan oo war sideeba waxan looga faa'iideysan karaa sideeba ganacsi looga sameyn karaa sideeba horumar waxbarasho looga gaari karaa sideeba xataa diinta iyo dadka wax loogu tari karaya in waxyaabaha la iska weydiiyo oo dhalinyaraduna maadaama oo ay maskaxdooda u furan tahay waqti casri teknoolajiyada ay joogaan ay ka faa'iideystaan oo qof walba waxaad arkaysaa qofka oranaya maanta muxuu ahaay waxbarasho bari hore ugu dambeysay oo waan weynaado waan ka haray haddaad weydiisid aysan koona 20 jir baan waan waxba kama hadhay technology-ga meel walba way yaalan waadiga maanta intaad isticmaalaysa ee TikTok-ga iyo videos-ka aad soo dhigayso dadka qaar bay dib ku tahay oo aan fahansanayn qofku isagoo iskuul lageynimo inta gara marka inuu qof walba isku dayo bal inuu wax barto oo waxbarashada ka haadin uu waqti helo uu wax ka faa'iideysto technology-ga iyo waxyaabahan